السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجعشها أنا إتحانك قاعد ميل سريسة إسلام مركان على نقطة قفك أوسري إتحانك كلاسكي نعم إسقالك هدي جوابت هذا هاي waxaan ku hayaa qodobo ka caawinaya in imtixaanka u diyaarsid si macquul ah oo aad u wanaagsan. Intaan muddo bilaabin waxaan ka codsanayaa channelka haddii aad ku cusub tahay aad subscribe ku sameysid sidoo kale aad videogan sii share gelisid like-na aad saadid kusoo dhawow muuqaal. qodobada ugu wanaagsan oo aad imtixaan ku diyaarin kartid ama aad ugu guuleysan kartid imtixaanka. qodobka koowaad qoondee waqtigaaga. waxaad isweydiinaysaa maxaa uu ku wadaa qoondee waqtigaaga. waxaan ka wadaa qoondee waqtigaaga ka dhig mid aad markasta maalin kasta aad diyaarsid in saacad ku go'an oo ku xisaabtan. dad waxaa jira aan waqti u xisaabtamayn oo markasta markay chance u helaan imtixaanka diyaariya. haddii aad saas sameysid waxa laga yaabaa inaad ku wareerdid laakiin waxa aad ugu wanaagsan in aad u yeesho waqti qoondeysan oo aad xil walba ku diyaarsid imtixaanka. waana mid aad u wanaagsan oo ku keenaysa in aad imtixaanka meel sare ka gaadhid. lambarka labaad waxaad ku diyaarisaa imtixaanka meel aan buuq lahayn oo ah meel degan. haddii aad imtixaan ku diyaarisid meel degan oo aan buuq lahayn waxa ay maskaxdu fahmaysaa wax badan sababtoo ah halkii cashar oo aad diyaarisid waxa laga yaabaa in si degdeg ah ay ku gasho qalbiga. laakiinse haddii imtixaanka aad ku diyaarisid meel buuq ah waxa laga yaabaa in hadallada kale ka dhex galaan maskaxda. qodobka saddexaad marka aad imtixaanka diyaarisid u dhaxaysay waqti nasasho ama aad ku nasanaysid waxay ka qayb qaadanaysaa nasashada in maskaxdu fahanto wax badan. laakiinse haddii aad waqtiga u dhaxaysin nasasho waxa laga yaabaa inay kugu keento inaad maskaxdu waxba fahmin. lambar 4 marka aad imtixaanka diyaarinaysid buug oo dhan ha diyaarin ama waxaan ka wadaa buug oo dhan ha isdhihin hal mar dhamee. ku hormar casharka kuu fudud dib dhiga casharka kuwa adag sababtoo ah haddii aad hormarid casharka kuwa adag waxa laga yaabaa inuu kaa cuno waqti badan adigoo aan degdeg ku fahmin. laakiinse haddii aad ku hormarid casharka kuu fudud waxa laga yaabaa inaad casharkaasna fahantid kabacdina aad usoo laabatid casharka adeega ah isagana aad fahantid. maanta inta ayaan la wadaagay haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar haddii aad hore subscribe u saaray videogan like saar u sii sheegay asxaabtaada ugu soo darso facebooka page like saar talriyaali inta kulmana kulanti dambe xiiso leh waxaan idin tagay sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.